بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة وسؤال قف كستoo مسلم isweydiin karo oo dhulkan jooga sidee bay u suurto galaysaa inuu meeshana joogo diintiisana u ilaashado qof kasta oo dhul uu qariib ku yahay taga stranger ah waxa uu baa in mashaakil tiro badani oo nololeed ka hor imanayaan mashaakilku wuu sii adag yahay marka aad timaado ummad dhisan oo hadday tahay mabaadi'deed oo dhan haysata innagu waxaynu u nimi halkan inaynu su-aalo runtii isweydiinaba habboon ku saabsan waxaynu u nimi inaynu wax ku bedelano mise waxaynu u nimi inaynu wax kororsanno inaynu wax ku bedelanaa dee waa fududahay qofku hadduu rabo afkiisa dhaqankiisa diintiisa waxaba inuu dhiibo bedelkana wixii uu helayo uu qaato waa war la garto mid kalena waxa weeyaan waxaagiina inaad haysato waxna ku darsatid adigoo waxaagii haysta inaad wax kororsatid bulshooyinka iyo qofka fardiga iyo mujtamaca haddii qofku waxa uu aaminsan yahay iyo culture-ku wato iyo dhaqanka iyo afka iyo ka bulshadu iswaafaqsan yahay wuxuu dareemaa rayn iyo naxariis iyo deganaanshiyo mashaakilku way ka yaraadaan ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحكو tilmaamaya من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها qofkii kasoo dhex toosa ama kuwaa bariista في سربه أي في مجتمعه في أهله في qowmi dadkiisa qofkii kuwaa bariista isagoo nabad qaba caafimaad qaba wuxuu cuna haystaa ka adduunka oo dhan baa ku soo ururay yani qofkani wuxuu helay alamni nafsi walamni alcaqadi walamni sixi walamni alghadaa'i yani wuxuu u baahnaa ee noloshu ay u baahnayd buu hayaa waxaana iswaafaqsan bulshadu u yimi ama bulshadu ka tirsan yahay waxay aaminsan tahay iyo waxa aaminsan yahay baa iswaafaqsan haddii qofku uu yimaado meel aanu dhaqanka afka culture-ka diinta la wadaagin waxaa adkaata siduu isu adjust gareeyo waxaa adkaata wixiisiina siduu u haysto waxna u kororsado waxaa fududaata inuu milmo dawabaan uu ku dhaco ou dadka ka mid noqda fudud marka ay dhacdo markaa in bulshadu waxay rumaysan tahay iyo waxa dhaqan u ah iyo nidaamkeedu iyo adigu wixii aad rumaysnayd ama diin u haysatay ama dhaqanku u ahaa iska hor yimaadaan waa markaa markuu qofku dareemo algurba waa markuu strangenimada dareemo inuu stranger yahay waa markuu dareemo challenge inuu ka soo horjeedo waayo bulsho kastoo meel ku dhaqan waxa la yaqaanaa waxay ilaalisaa identity-ga ay bulshadu leedahay waxaana ku ilaalisaa can طariiq alcilmi waliclaami walqanuun wasaaradda waxbarashadu waxay ilaalisaa bulshadan inay isku darto oo ay siiso identity-gii bulshadu lahaa qofkan kusoo biiray inay siiso iclaamkuna waa sidoo kale media
waxa uu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo iyo waa dhaqan iyo culture iyo hidde iyo af ay dadkani leeyihiin iyo taariikhdoodii intaa waxaa dheer haddii ay intaasi ku anfici weydo systemkaad ku qasbantay nidaamka guud alqaanuun system baa ku qasbaya inaad systemka raacdo su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay meesha kaa gadisan sidee baad diin ugu dhexaysan kartaa marka aad meel kula nooca joogtid majhuudka ama effortka iyo kostkay kugu qaadanaysa inaad waxaaga haysataa waa wax fudud waayo bulshadaad la nooshoo dhan baa dhan u wada socotaa saa daraaddeed afkaa lumi maayo dhaqankaa lumi maayo diinkaa lumi maayo waxoogaa un adigu is-ilaaliso midhmidhka qaldan wixiisa inaad ka tagto ayuunbaad u baahan tahay laakiin systemka guud wixii aad rumaysnayd buu wadaa marka inaad diintaada ilaashato ilmahaaga ilaashatid dhaqankaaga ilaashatid awoodda aad ku bixinaysa iyo hantida aad ku bixinaysaa waa wax yar markaadse timaadid meel aad intiiba kaga gedisan tahay waxay u baahan tahay wakti ka badan iyo hanti ka badan iyo effort ka badan iyo caqli ka badan aad ku adeegsato si aad waxaagii hore u ilaashato u suurtoobi karto inaad waxna kororsato sideedabana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka dhulka ku nool intooda badan haddaad aqbasho yudiluuka can sabiili illah baa ilaahay tilmaamaya jidkay kaa luminayaan haddaba qofka halkan yimi waxaa la yidhaahdaa laba option ama laba doorasho qura laba khiyaaro keliyuu haystaa khiyaar waa inuu u diyaar garoobo sidii uu diintiisana u xejisan lahaa iyo wixiisa waxna u kororsan lahaa hadduu arkayo taasi inaanay suurtagal ahayn khiyaar labaad ma jiro ee waa inuu meeluu wixiisa ku haysan kara tagaa halka yaabana tirada halkaa dhib baa ka jirte dunida gebigeeduba waa challenge intaad nooshahay waa alibtilaa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دوني واحد وشوكتين لقوا يتحاموا لكن هذا كوكو حرنتي مركا امتحان كان نوع تشالنج قرينيسو تشالنج كات ربطين اتقاضته كان نوات قاضن كرتا تشالنج كات شوغا هذا تكبيحي كرتو هدي أنا كنا وودي كرين waa inaad qaadataa challenge-kaada walba ka soo carartay oo nabad iyo dhaqaaliya cunno ku saabsisanaa kaas sidii aad u manage garayn lahayd waa inaad waajahda laakiin meel ka dhaxaysa ma jirto labadaa wixii ka dhaxeeya waa dhimasho un maxaa loo baahan yahay markaa inaynu haysanno teeni ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qisas tiro badan oo ku saabsan bulshooyin dunidan soo maray iyo siday u noolaayeen bulshooyinkaa ilaahay ka warramaya qur-aanka kusoo qisaskooda ku soo naqliyey qaar gaala ah iyo qaar muslimaba way lahaayeen ummadaha ugu tirada badan leh qur-aanku uu ka warramo waxaa ka mid a dadka yahuudda la yidhaahdo yahuudi waa bulsho taariikh dheer leh waa dad xun iyo dad wanaagsan ba lahaa dad wanaagsan oo badan bay lahaayeen saa qur-aanku ka warramayo bale ambiye badan bay lahaayeen nebiyo nebi yacquub nebi yuusuf nebi sulaymaan nebi huud nebi muuse ambiyada qur-aanka warramaya o dhammi de waa familiga waa bulshadaasi ka tirsanaya dad wanaagsan way lahaayeen aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaa minhum aima ilaahay wuxuu leeya iyaga waxaanu ka yeelay a'imo aayaadka yaga a'imo sabray oo aayaadkaaga yaqiinsaday oo dadka qudwa u noqday tusaale dhanka kalena kuwa xun bay lahaayeen ilaahay markaa qur-aanka wuxuu inooga warramayaa bulshada reer banu israa'iil ay dhaho qayb mar ka mida taariikhdoodii
ilahay wuxuu waqatacnaahum fi lardi umama waanu googoyno dhulkaanu ku saydhinay baa ilahay yidhi qatacnaahum fi lardi umaman minhum الصaalixuun وminhum duna dalik وbalownaahum bاlxasanaati والsayi'aati lacalahum yarjicuun dad wanaagsanna way lahaayeen baa ilahay yidhi dad xunna way lahaayeen waana la googooyey waa itixaamay baa ilaahay leeyo xasanaad iyo sayi'aadba wanaag iyo xumooy samaba waa lagu itixaamay lacalahum yarjicuun maxaa xaalkoodii noqday markaa waxaa qisaskaa laynoogaga warramayaa inaynan qaar ka midi ficladay sameeyeen inaynan samaynin ilaahay wuxuu leeyahy markaa fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaab kuwaa waxaa gadaal maray koox kitaabka dhaxashay baa ilahay yidhi warithuu alkitaaba kitaabka way dhaxleen ya'khuduuna carada hada aladna waxay qaadanayaan baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala noloshan gaaban wixii ka soo gaadha waa iska qaadanayaan xalal iyo xaaraan iyagoo aan u eegin oo wayaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa wain yaatihim caradun miluh mar labaad haddii kii oo kale ku soo baxana ya'khuduuh baa ilahay yidhi waa qaadanayaan ilahay qoladan wuxuu ku tilmaamaya dhowr sifo kow kitaabka way dhaxleen bini aadamku wuxuu dhididkiisa iyo xooggiisa ku baxsado iyo wuxuu dhaxla ku helaa agtiisa way ku kala fudud yihiin bini aadamku haddii uu maalan ilmaha yar haddii xoolo looga dhinto inta badan waxaa dhacda inay maxay ku cayaaraan waayo umay dhididin iyagu laakiin qofku xoolaha uu shaqaystay ku dhidida ee xoog iyo naftiisa ku bixiyo wuu la xajeclaabayo way adagtahay inay ka baxdo noloshoo dhan baa sidaasiya diinta dadka u dhintay ee naf iyo maalba soo siistay ee waxay u hijrooday saxaabadii nebiga iyo dadkani waa noloshooda dhan bay siisteen saawgeed way ku adkaayeen laakiin dadka dhaxalka u helay sideenoo kale meelun baynu iskaga dhalanay dad muslimiini joogaan islaamkun baynu aabbayaasha iyo awowyadeen allahu naxariistee ka dhaxallay wax kasta oo inagu joogay ma jirin adnaa majhuud maynan gelinin qoladan waxaa lagu tilmaamay iyaguna inay kitaabka dhaxleen dhaxal bay ku heleen warithul kitaab laakiin dhaqankoodii maxaa ilaahay ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi waxay doonaan inta iska sameeyaanba waxay leeyihin ilaahay waa ghafuuru raxiim sayukfaru lana waa noo dambi dhaafi doona bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo ilaahayna waa ghafuuru raxiim hadduu ka soo noqdo toobad keeno jidka saxa qaada ilaahay dembigiisa ugu dhaafaa laakiin qoladani caadadoodu waa maxay waa iska dhumbanayaan marka la yidhaha war waa sideena insha allah ilaahay baa noo dambi dhaafa bay leeyihin ilaahay baa noo dambi dhaafi ma berrita hadday tiitimaadana waa la wadayaa that means dembiga waa la wadayaa rajada iyo amalka ah ilaahay baa dembiga dhaafi doonana waa la hayaabaa ilaahay leeyihi qoladan ilaahay wuxuu ku yidhi alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun war kuwan miyaan ilaahay ballan ka qaadin baa alla leeyahy subxaana wa tacaala inaanay ilaahay been ka sheegin oo kitaabkan inay daraaseeyaan iyo waxa ku jira war daarta aakhira u faa'iido badan baa ilaahay leeyahy u khayr badan dadkii ilaahay ka cabsanaya war miyaanay caqli lahayn baa ilaahay yidhi afalaa tacqiluun miyaan garashadu shaqaynin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan gruub kuwaasaa lagu tilmaamay inay noqdeen qaar kalena waxaa la tilmaamaya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا كتابك قبصة با إلهي لي مسك وبتضعيف يبا الاستعمال الوضع عربيد يعني واحد قبقبان يسواد حجين يسو مسك هو قبطي لكن مسك والذين يمسكون بالكتاب إلهي كوا كتابك قبصانية حجينية وأقاموا الصلاة صلاة أوغية إنا لا نضيع أجر المصلحين بإلهي مالو من النبا إلهي لي كوا السماحة السبين أجر كود ظلم مايو إذن قصة إلهي وحين أبو الشاقر هرب إسرائيل لقوقوي سيدا إنو كلا فردني لو كلا فرديي إن إداد صالح إداد حنبا لهايين وهلا شاقر امتحان هذا وصومري بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
laakiin waxa la tilmaamay groupkaasi group inuu ka dambeeyay iyagu intay wax walba iska dhumbadaan diintoodii aan xejisanin ee amalka ah in loo dambi dhaafi doono uun iska haystaa waxay doonaanna sameeyaan iyo koox kaloo ah kuwo kitaabkoodii intay qabsadeen xejistay oo salaadoodii oogay oo ilaahay leeyahay kuwa wanaagsanna ajarkooda lumin mayno idan waa labada wado qofka qariibka ah mid uu ku biiraya bulsho ka badan markaad adigoo yar la joogto labada wado mid baad qaadaysaa su'aashu waxa weeyaan hadaba waa maxay wasaa'ilka inugu xijin kara diinteena sidaynu u xijin karnaa waxaynu u baahanahay inaynu in yar dib ugu noqono tajribadii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi maxamed wadcigaynu ku loon lahay mid ka adag bay ku noolaayeen mid ka adag nebi maxamed isagoo keligiiya la soo diray calayhi salaatu wasalaam qof iyo laba iyo saddex baa rumeeyey dhul gaaleedna way deganaayeen meeshay deganaayeen markii waa dhul gaaleed madiinina waa dhul gaaleed marka gaalaa degan culture kalaa yaalla luqadooda isku mid bay ahayd laakiin caqiide iyo dhaqan ka gadisan kii jaahiliga bay haysteen sidee bay u dhacday inay saxaabada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hor tagaan oo ay diintoodii u xejistaan waxaan rabaa inaan in yar tilmaamno afartii suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay qur-aanka culamadu waxay isku waafaqsayeen afar suuradood baa ugu soo hordegay ayay inta badan tilmaamaa weliba afarta suuradood oo wada dhan maaha mid walba qeybteeda hore waa suurat alcalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة داس قيب طاهر وحكالو ينسو دكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسي هرير وحكالو سو دكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى آيات كسيحية وحكى له سودقي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا آياتك هاي علماء يراهدان waxyigii koowaad ee nebi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa godka markuu ku jiray laakiin maadaama uu nolol adag waajihi doono waxay idhahdaan qaabka wax la ysugu bara tacliimka si qabow baa qofka wax loo baraa laakiin nebi maxamed markii lagu bilaabayey qaab adag baa loogu bilaabay malakul jibriil baa intuu qabto gelgelay ayuu iqra ku yidhi waxay culammadu yidhahdaan waxaa la taabsiinayey قمة الانتباه والصحوة waxaa soo socdaa wax fudud inaanu ahayn inuu xoog u soo jeesto dabeetana qur-aankan baa ku soo degay qur-aankani muxuu ka warramayaa waxay dhahdaan aayaadkani waxay sheegayaan haddii lagu dhaqmo waa waxa sababi kara inay cidi mabaadi'deeda haysato ku dheganaato diinta inaad xejisato aayaadkani dhowr shay bay ka warramayaan midi waxa weeyaan kow waxay ka warramayaan qadiyat alcilm iyadoo laga yaabo carab inay jahli ku sugnayd aqoon inaan waxba ka jirin oo ay noloshoodu cayn ka ahayd cilmiguna inaanu qiimo badan agtooda ku lahayn laakiin wixii qur-aanka ugu soo hordegay masalada qalamka masalada kitaabada iyo akhriska iyo cilmiga iyo ku saabsan buu ahaa laba suuradood markaa nuun walqalami wamaa yasturuun waxaa lagaga warramayaa qalinka iyo waxa la qoro iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam qadiyat alcilmi walqalami wasutuur baa laga warramay waxay culammadu yidhahdaan kow الجاهل وحبيس كما دفاعي كره دي اللي الرباط دين تاني انه حيجي سنو
وإننا برناه قضية العلم بني آدم كوحة كوادة وسكود دافعة ومسألة العلم وحاند علمي ولهين مدفاعي كرتيد وحاند قرنين مدفاعي كرتيد وحاند قرنين شبهات كاكو بدنية ولو شك قلينية وحاند قرنين أسئلة دادتك كما جوابي كرتيد وحاند قرنين ما قرن كرتيد محاضو هايسطاه إذا أولى شيء أما شيء قوه الرأي نوبة هنا هدية إنه ربنا إنه ديننا هيسنا وإنه نقرنا وإنه برنا وإنه أقانو يالنا عقيدة دي وحي شيء يسو وإنه نقرنا ريسن كديه كومن سنس كديه وحكدم بيا وإنه نقرنا وإنه عقلي نوح وقاضا كرن نقطة وإنه سفي عنه فهمنا كسوامد كلبات آيات كان يكورم يا وحويان وحيد هذا خير الدفاع خير وسيلة للدفاع هو الهجوم بين هذا وسيلة وقف عن الدفاع لوجل وإن هجوم ما ديار طهينة وحسك دين كرتين هدي أدقون لقوي يرون مبادئ ذكرون لقوه وضه والله ما يسا لكن إلهي النبي محمد يقول يا أيها المدثر قم فأنذر كان اسداد يوبا ليدي كع أودك وحكاه الرئيس وسود كتاب من يقرأ يريو يمكن النبي عليه الصلاة والسلام لحد بلاد كسعوني هذا نوح الغب بلا بينه كع أودكه إذن إن دعوة سمينا إن ندتك كلا الدين تويرنا ووحك كان سنة يتين إن نحيشين كرنا وحلقوا يدي مركها قم فأنذر وربك فكبر ربي كان وينيه وثيابك فطهر مريها هاجي قلوب تادي كوري هوسبا استاهر ريال والرجس فهجر حمها كجور كهجرود ولا تمنن تستكثر إخلاص لك عليه واحد بحين يسها من شيئا وحلو يري مركا ولربك فاصبر وضضا إن أتقادانا مشاكل هي تشالنج عصب ويان يدنا الصبر بالليل كوحل لنا قضية كواد وقضية العلم هذين رمين دين تن قصقنا نوحش إنه وين نبرنا قرنا سفي عنه فهمنا وهي اليويل يربع كذا اللي بعدنا وامحي وين نيضا شقينا دتك قارسينا إنه ناس قارسينا وهنا نسكت طهرنا كوريو هوسبا حماها كهجرون كجورو وحاسنا وين ينقى هذا إلهي درتي يا خلاص challenge كاينو هور إيمان دوننا وين نوصبرنا كاسا لفرق بنادم كو هدو شيء علص قاضه وداله هدو challenge كو أتكاضه ويسديبه لكن قفك مسلم قال مرة بينو يسديبه محو سمينيا وحرير كاد إلهي لا يضي أتكيبه لقولي ضاد الربطه inaad ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisana hesho hadday dhibo ku qabsato maxaad ka fikirtaa qofka bini'aadamka markay dhibo qabsato مثلا economical problem baa ku qabsaday dhaqaale dhib dhaqaale markiiba waxaad fikiraysaa wartalow xagaad ula kacda waxaa kugu soo xaadiraya ciddii qaraaba iyo toliya asxaab ahaydeen ee waxaysataad isleeday waxbay kaa tari karaysaa baa markaaba madaxaaga ku soo xaadiraya marka waxaad markiiba tijaabinaysaa bal intaasi culayska inay kaa qaado inaad connection la sameeyo xidhiidh inaad ku wala samayso ilaahay wuxuu leeyahay haddii diintan culays aad dareentaan aniga xidhiidh la sameeyo saadaradeed baa nabi maxamed waxa lagu yidhi iyo saxaabada yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila habeenkii kac baa la yidhi nuskii ama intiisa badan ama in yar nuska ka yare habeenkii kac ilaahay xidhiidhkaad la leeday xooji waayo innaa sanulqii calayka qawlan thaqiila baa ilaah yidhi war culus baan kuu dhiibayaa baa ilaah yidhi diinkan inaad xambaartaa waa culays baa ilaahay leeyahy haddaba culayskaasi si u fududaado ilaahay kaalmayso ilaahay cibaadadiisa iyo ku-xidhnaantiisa iyo baryadiisa kaa kaalmaysa baa ilaahay leeyahy ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu watan wa aqwamu qiila
maalin oo dhanna waina laka fi nahaari sabxan طawiila tasbiixso oo dikrigaaga badi watabatal ilayhi tabtiila waka suuradoo dhami markaa waxay tilmaamaysaa qaybtan aynu tilmaamaynaa haddaad aqoon diintiina u yeelataan oo ku qanacdaan isla markaana aad dacwa samaysaan oo dadka ugu yeedhaan idinkuna a isdaahirisaan sabir baa laydinka baahan yahy haddii challenge-ku xoogoobo mar kasta ilaahay ku xidhnow baa la yidhi biyadihi malakuutu kuli shay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan allaha wax waliba gacantiisa ku jiraan ku xidhan baa la yidhi waxaan leenahay marka afarta suuradooda hore intaasay ka warramayaan saxaabadii si fiican afartan u fahmay ilaahay muxuu ku sifeeyey min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤمنين waxaa ka mida baa ilaahay yidhi rag ka run sheegay wixii ay ilaahay ballan la galeen qaarna waa ku dhinteen iyagoo diintoodii haystay dhinteen qaarna waa sugayaan wax bedela kamay samayn diintoodii baa ilaahay leeyay may bedelin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa rijaalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والرقبة إلى إليه أنا كمشغول تجارة هي بيع هي نقال الرادنتو إلهي حسكي سنقالوا مرة فيها إلى إليه هي صلاة أوغستيد هي زكاة بحنتيدا وايو waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo indhuhuba ay gadgadoomaan waxaan dhahdaa inta badan su-aalaha haddii goor la isweydiiye waxaa ka mid a meelahan marka la joogo shaqadii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo salaadii baa isku beeg mooyde sheekh maxaa la yaal waxaa qiil loo raadinaya maxay shaqaduna dee iyadu isweydiin male inay xagga salaada laga helo fasax loo helo dhanka salaada ka soo baxa ama ilaahayna wuxuu ina leeyahay raggaa diintooda haystay astaantooda waxay ahayd rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami salaa duul aanay ka weecinin ama aanay dhaafinin tijaarada iyo xoolo raadisku ilaahay xuskiisa iyo salaada ogisteeda iyo zakada aanay dhaafinin idan waxaan leenahay kow afarta shay ama saddexda shay ee aynu nidhi duuduub ahaan afartaas suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegaa tilmaamayey waa waxa koowaad aynu diinta ku xijin karno waa tajribadii ay ka soo baxeen saxaabadii iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaan iyaba dhul gaaleed bay joogeene waxay diintoodii u xejisteen ee ay u faafiyeen maanta dhowrka 2 bilyan ay u haysataa qur-aankaasaa ilaahay ku sugay waxaa sheegaya waxaa soo warwareejinaya waxa weeyaan waxaabad qarinaysaa inaad muslim tahay waxaad qarinaysaa cibaadadaadaad rabtaa si sakrata inaad u samayso inaad cibaadaysataa aan cidina ku ogaanin laakiin asalku waa maxay asalku waxa weeyaan alictizaazu bidiin diintaada inaad ku faanto maxaa keensanaya inaad kalsooni ku qabto inay tahay wixii ugu saxsanaa ee dunidan yaalay taasaa keensanaysa walidaalika baa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بإلهي إلهي با عزة يا شرف ودن اسكالي يا رسول كيس يا انت الرميسي لكن منافقين تو أرمها ما أوجب إلهي لي منافقين تو ما أوجب إلهي لي بلانيقنا الصحابة دي سيدي وأركيين لما قصة كوبا بانت المام يا علماء التاريخ صور نقليان midi waa dagaalkii qaadasiya markuu dhacay qaadasiya waa dagaalkii ugu weynaaye dhex mara iiraan ama bershiya dowladdii la odhan jiray iyo dowladdii islaamiga ahayd meeshaan hadda ciraaq la yidhaahdo uu dagaalku ka dhacay iiraantuna dee ciraaq iyaga iska haystay madain caasimadooda waa baqdaad bay wax yar u jirtaa meeshaasi dagaalkii markuu muddo socday dagaaladaasi muslimiinta waxaa hogaaminaya oo wada عشرة المبشرين من كمدة سعد بن أبي وقاص يا سودانية كونوا عيدا كمسلمين تاوتا
200 kun ciidan ku dhodhow oo eraantaana waxaa wata nin Rustam la yidhaahdo. marka Rustam wuxuu soo jeediyey fikrada war bal aan wada hadallo, cid soo dir aan idinla hadle. 3 nin baa kolba mid loo diray. maalinta loo diraa waa iswareystaan, bal mid kala soo dir, waa la iswareystaa, mid kala soo dir. 3 saxaaba kolba mid loo diray. saxaabadii la dirayey waxaan filaya Cabdillaahi ibn Xudayfa iyo Mughira ibn Shu'b iyo Ribci ibn Caamir inay 3 ahaayeen baan rajaynaya. Calaa kulli xaal qisada Ribci baan u sheegayaa. Ribci ibn Caamir waa nin dagaal ku soo jiray, faras yaroo gaaban wata, dee nin dhowr bilood dagaal ku soo jiro iska rafaadsan oo aanay abhadan adduunku ka muuqanin weeyaan. ninkanna inuu hanjabiyo ku talagalo intuu carshigiisii meel dhigtay sariirtii boqortooyada ayaa kaarbadka cas la waday. arrin dhan baa la goglay markaa. ninkanoo faraskiisii gaabnaa wataa soo galay, kaarbadku iska soo dul eriyey. dabeetana barkimooyin meeshan yaalla ayuu ku xidhay faraskiisii. xaggii ninka boqorka u soo dhaqaaqay. waxaa la yidhi may loolama galo boqorka hubka. Rustam huboo la geli maysa, hubkaaga dhigo marka adoo bilaabo. wuxuu ku yidhi dhegayso, idinkaa ii yeedhay, sidaydan haddaydan iigu ogolaanaynin waa iska noqonaya. saa uu sheegaa ninka madaxdaydina. waa loo tago waxaa la yidhi ninkii wuxuu yidhi ama waxaygoo dhan baan ku soo gelayaa ama waan iska tegaya. soo daaya buu yidhi isagoo wixiisa wata. wixiisa isagoo watuu soo galay. su-aal baa la weydiiyey, maa jaa bikum, maxaa idin keenay? ninkani wuxuu ka fikerayaa dee nimankani dhul saxaara iyo gaajo iyo rafaad iyo haraad bay ka yimaadeen. marka mala haddii wax la siiyo dowladdu iska laaluushto waa noqon karaan. marka wuxuu leeyahy maa jaa bikum, maxaa idin keenay? Ribci ibnu Caamir wuxuu ugu jawaabay jawaaba allahu ibtacathana, ilaahay baana soo saaray buu yidhi marka koowaad, linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaahi waxda, inaanu ciddii alla doono dad ka saara dadka addoommahaysa addoonsanayaan oo ilaahay addoommo uga dhigno. ilaahay baana soo diray buu leeyay, waxaana naloo soo diray inuu bini aadamka xorayno oo dadku inaanay dad addoommo u noqonayn, rabbi un addoommo loo noqdo. kaasaan u soconnaa buu leeyay. waxaanu kale u soconnaa buu leeyay inaanu dadka ka saarno min diiqi dunya ilaa sicatiha, adduunka cidhiidhigiisa inaanu ka saarno ballaceeda u saarno. ninkan kaarbadka cas loo dhigay buu cidhiidhi ka saaraya. ninkan faraska yare gaaban watee haylyaamaa xidhan ayaana la sicada adduunkan ku tusaya. yani waxa weeyaan qofku waa qanaacada iyo qalbiga. qofka muslimka adduunkan gacantiisa ku jiraa wax weyn lama aha. marka wuxuu leeyahay adduunkana idin dhammaray, cidhiidhigeedaan kaa saaraya, waxaan kuu saarayaa buu leeyahy maxay? sicadeed iyo ballaceeda. waxaan kaloo kaa bixinaynaa buu leeyahy min jawri aladyaani ilaa cadli alislaam, dulmiga diimahan kaa bixinaynaa oo cadaaladda islaamkaanu kuu keenaynaa. idan waxay tilmaamaysaa ninkani siduu muctaz bidiinihi u yahay. ama boqor ha la kulmaya ama cidduu doona la kulmo, wuxuu aaminsan yahay buu ku faanaya, korkiisa ka muuqda. si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya xataa haddii laydinka xoog bato. ghaswat uxud markii muslimiinta la jabiyaa ilaahay wuxuu leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin. ha liidanina baa ilaahay yidhi, hana murugoonina, idinkaa koreeya haddaa mu'min tihiin. cinda allaahi agtiisa idinkaa koreeya haddaa maxay tihiin? haddaa mu'miniin tihiin. qiso labaad baan rabaa inaan tilmaamo oo sheegaysa saxaabadan isay diintooda ugu kalsoonaayeen. bayt ilmaqdis iyo shaam meeshan ciidamadii muslimiinta furtay iyana nin 10 ka mid ah hogaaminayay. cubaydata bnu ljaraax ayaa hogaaminayay. nimankii kristanka ahaa ee meesha isku qabteen markii dagaaladu dhaceen kadib waxay idhaahdeen bayt ilmaqdis waa idinku wareejinaynaa, heshiis baanu gelaynaa, laakiin furaha amiirkiina cid aan ahayn u dhiibi mayno. cumar baanu heshiiska ka saxeexanaynaa u dhiibaynaa. warkii buu soo diro, cumar buu soo sheegay. cumar baa madiine ka soo baxay isagoo raba bayt ilmaqdis furaheeda inuu la wareego. markuu meesha agtoodii marayo ayay muslimiintiina ka hor yimaadeen iyagoo soo dhoweynaya. saraakiishii iyo ciidamadii muslimiinta raggii hogaaminayay ayaa ka hor yimid. meeshan uu cumar soo maray wuxuu ku soo maray meel dhiidhi iyo dhoobo midhana buu soo maray. dabeetana intuu neefkii ka daadegay oo labada kabood la baxay
ayuu hogaamiyey labadiisa kaboodna halku ku soo qaatay waxay saxaabadii ka hor yimaadeen markaa cumar oo neefkiina hogaaminaya cagahaya intanna dee dhoobo ku leh kabihiina halka ku sita abaa cubayda markaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك ما تجعلي سنيو dadka aynu la kulmayna adigoo saatana inay ku arkaan maan jecli buu leeyahy yani waxaan ka jeclaan lahaa adigoo de amiirulmuminiin u muuqdo oo aan dhooba iyo waxba toona lahayn inaad meesha timaado cumar wuu ka xanaaqay awa low yaqul hada gayruk abaa cubayda mid aan adiga haynin muu yidhaahda buu leeyahy yani cumar wuxuu leeyahy adigoo abaa cubayda oo casharatu lmubashiriin ka mid oo ragga ahaa ka mid ah inaad sidaa u fakerto maan filaynin buu le cumar ku tilmaamaya cidaan adiga haynin may tidhaahda eraygaas buu leeyahy cumar markaa wuxuu leeyahy waxaanu ahayn dad dullaysan islaamka hortii baktiga cuno kan sameeyo yani dad dullaysan oo aan qiimo lahayn ayaanu ahayn faacazana allahu bilislaam buu yidhi ilaahay wuxuu magac iyo maamuus iyo sharaf noogu yeelay diinta tan waxba maanan ahayn buu leeyahy haddaanu carab ahayn laakiin waxaanu maamuus iyo maqaamba ku yeelannay markaanu diinta tan qaadannay sidaa awgeed buu cumar wuxuu leeyahy famahmaa طalabna ama famahmaa naطlub alciza bigayri ma acazana allahu bihi adalana allah imaam alxaakim baa ku soo aroorinaya saxiixiisa haddaanu ka raadinna buu leeyahy cizada iyo sharafta waxaan diinkan ahayn haddaanu ka raadinno ilahay waana dullaynaya cumar wuxuu leeyahay cagahaygan dhoobadooda ha eegina waxaan aaminsanahan qofku ahay islaamnimadan baa wax iga dhigtay buu leeyahy marka wuxuu ku faanayaa inuu qof muslima yahay marka waxaan leenahay islaamkeena inaynu xejisanno oo qura maaha inaynu ku faano muctazun bihi noqono dad isaga ku faanaya atamasuk bidiini walfakhru biintisaabi inaynu diintan xejisanno oo inaynu iyada muslim nahayna muslimnimadu ay faan quutay ilahay isagoo nebi maxamed la hadlaya wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calى siraaطi mustaqiim wainahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilahay wuxuu nebiga ku leeyahy fastamsik biladii uuxiya ilayk qabso oo xejiso waxa laguu soo waxyooday baa ilahay leeyahy inaka calى siraaطi mustaqiim waayo jid toosan baad haysaa baa ilahay leeyahy waddo saxaad ku taagan tahaye waxyiga xejisa baa ilahay ku tilmaamayay deetana ilahay wuxuu leeyahy wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qur-aankaa iyo waxyigaa iyo diintaasi ladikrun laka sharaf iyo sheeg buu idin yihi adiga iyo dadkaagaba wasawfa tus'aluun waana laydin weydiin doonaa baa ilaahay leeyahy cizadaa laydin siiyey sharaftaa waxa ka yeesheen idan haddaynu rabno inaynu halkan sii joogno kowa inaynu diinteenna xejisannaa asbaabtii keensanaysa inaynu xejisano inuu la nimaadnaa oo ay ugu horeyso inaynu baranno oo garanno inaynu dadka ugu yeedhno inaynu ilaahay ku xidhanno obsticaleskiiyo waxa inaga hor imanayana inaynu u sabirno rabbina kaalmaysanno intaa kadib inaynu ku faanno oo dad casiiziin ku ah man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiica baa ilahay leey war ciddii sharaf doonaysaa xagga allun baa laga raadiyaa baa ilahay leey aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica ilahay wuxuu leeyahy kuwan gaalada awliyada ka dhigtay qaraabada ka dhigtay soo dhoweystay ee mu'minkana durkinaya ma sharaf bay ka raadinayaan baa ilaahay leeyahy war ilaahay agtiisu ma sharafi taalaabaa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala idan waxaan leenahay haddaynu rabno halkan inaynu joogno waa inaynu diintan aqoon u leenahay waa inaynu xejisannaa waa inaynu ku faannaa intaa kadib xuquuqda kale aada leedahay ka muwaatin inaad waddankan degan tahay markaasaad raadin kartaa waxaan intaan raacinayaa noloshu waa challenge nolosha gebigeeduba waa caqabaad laga jawaabayo ama waa inaad caqabaadka halkan kaaga hor imanaya ka jawaabtaa ama waa inaad iska noqoto ayaa aad waajahdaa maxay caqabadii xaggaaga taalle labada midna yeeli maayo waa dhimasho ilaahay reer banu israa'iil kuwii u ammaanay markuu ka warramayay wuxuu yidhi
wajacalnaa minhum a'ima yahduuna biamrina waxaanu reer banu israa'iil ka yeelay qaar ka mid ah a'ima imaamiyo qaada leaders lagu daydo waa goorma lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun baa ilaha yidhi waa markay aayaadka iyagana rumeeyeen oo xejisteen ku sabreenna wixii dhib ka hortimay baa ilaahay leeyay saasay liidernimada ku heleen ama qiyaadada saasaa lagu siiyey baa ilaahay leeyay innagana ilaahay muxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu allaha lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo sabra oo la sabir dhigta baa ilaahay leeyay challengeska dad waa bini aadam waxaan kaa hor imanayaa iyaba baa ilaahay leeyay marka hadday iyagu tooda ku adkaysanayaan la sabir dhogaadna taada ku adkaysa baa ilaahay leeyay oo waraabitu dhufayska ugu jira oo wattaquu allaha lacalakum tuflixuun ilaahayna ka cabsada waa guulaysan doontaan diinteena aan haysanno ku xejisanno oo ku faanno oo mashaakilka inaga hor yimaado ku sabirro macnaheedu maaha dad qallafsan aan ahaano dadka badh baa marka sidaa la yidhahdo waxay u fahmaan qof caniif oo violent oo wax kasta ka hor yimaada inuu yahay maya ilahi wuxuu leey yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira wamaa yadakaru ila ulul albaab alxikma walxanaka waxaa loo baahan yahay xikma iyo qaab dadka loona noolaan karo xadiidka aan eegna nebiga calayh salaatu wasalaam xadiiskii saxiixayn ku yaalla caaisha waxay leedahay koox yuhuudaa nebiga u timi kuwii xumaa ka mid a dabeetana waxay nebiga iyagoo habaaraya ku jeesjeesaya isla markaana iska dhigaya inaanay wax xun sheegayn bay u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen assalaamu calaykum assalaamu baa laamka la tuuraya marka waxaad iska dhigaysaa qof wax salaamaya laakiin salaan maahee waxaad leedahay assalaamu bayd assalaamu calaykum waa ilaahay ha ku ilaaliyo allah ku xifdiyo nabadi korkaaga ahaate weeyaan assalaamu calaykumna waa geeriye korkaaga ahaato geeriye korkaaga ahaato marka intay nebiga u yimaadaan bay waxay idhahdaan assalaamu calaykum geeriye korkaaga ahaato caaishoo nebiga la fadhida xanaaqday markaa waxay ku hadlayaan bay maqashay deetana way xanaaqday deetana waxaa ku tidhi bal wacalaykum assaamu wallacna idinka korkiina nacdasha alle iyo geeriduba ha ahaata bay ku tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam caaishadii sidaa u qaylisay buu la hadlo wuxuu ku yidhi caaishaay ilaahay waa mid dabacsan oo dabaca jecel yuxibu arifqa fi lamri kulih caaisha malaa waxay tidhi dee dabacani halkan malaa ma qabtee nebigu malaa wixii baanu maqlaynin waxay niman ku hadleen dabeetana waxay tidhi awalam tasmac maa qaaluu ilaahay rasuulkiisi waxay ku hadleen miyaad maqlaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa maqlaya qad qultu wacalaykum isma dhibine wacalaykum un baan idhi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayadka xadiidkaasi waxay wada tilmaamayaan riwaayado badani uu nebigu ku leeyahy in allaha tacaala rafiiqun yuxibu arifq wayucطi cala arifqi ma laa yucطi cala alcunf wama laa yucطi cala ma siwaah calayki biالrifqi waإyaaka wاlcunfi wاlfuxsh ina arifqa laa yakunu fi shayin ila zaanah walaa yunzacu min shayin ila shaanah riwaayadka axaadiista markaynu isku ururino waxau nebigu tilmaamayaa rifqiga iyo dhimrinta iyo si qabow in wax loo qabtaa waa qurux badantay buu nebigu ku tilmaamaya cunfiga iyo shidada iyo qalqalafsanaanisa iyo violencekuna waxma kordhiyaan buu nebigu leeyahy iyo afxumadu wax wanaagga lagama kaxeeya buu nebigu leeyahy ilaa wuu fool xumeeya yacni rifqigaa lagama kaxeeya ilaa waa fool xumaada rifqigu markaa waxba dadka ma yeelo idan waxay leenahay diinteenna inaan xejisanno ku sabirno challengeka aqbalno ka hortagno maca kulli dalikna dad dhaqan islaam uu ka muuqday akhlaaqdii aan ahaano haddaan su-aasha si kale u dhigo waxa weeyaan waxaynu u baahanay inaynu kala garanno waa maxay farqiga u dhexeeya aldawabaan walindimaaj inaad milantid iyo inaad dhex geshid ama si kale haddaynu u nidhaahno maxaynu qaadanaynaa maxaynu se ka tegaynaa maxaynu faa'iidaynaa oo kaga dayanaynaa
maxayna kaga dayanaynin waa inaynoo kala caddahay qadaaya diin wixii diinteenu sheegtay compromise waa inaynan ka gelin compromise ma gasho waa caqiidadaadii waa diintaadii qadaaya alcilmi watajaarib alinsaniya watijaara wakada wakada waxaasina waa ka qaadanayna idan wixii aynu haysanayn waa inaynu wax ku kororhsannaa ee waxaynu haysanay inaynu wax ku bedelanno maaha waxaynu haysanay inaynu bixinno bedel qaadanno maaha si awgeed in badan waxaa maqli doontaan iyadoo la leeyay bulshooyinku ha isdhex galaan ama integration baa loo baahanya ama qolada sociologyga waxay ka warramaan bulshooyinku markay isu yimaadaan dadka kala nooci 3 shay midunbaa dhaca bay yidhaahdaan qofka strangerka ama daa'ifada qaliilka ah ee minority groupku inay giito sameeyaan meel galaan oo giitana in badan dunidan maanta maba jirtaba ilmahaaga qolka ku jira dunidoo dhan baa u furan giita ma jirto iyadu haddii waayadii hore meel gaara inta la dega la isxidhi jiray iminka netkan iyo midiyahan iyo waxa kane sariirtaadu yaalla marka giitihii isagu ma jiro isma xidhi kartid maxaa yaalla marka waa laba mid un assimilation inaad milantid oo maydhantid waa dee dadka ka mid noqotid inaad qalbiga ingiriis yar ka noqotid dushana ka madoobaatid waa bulshadaad ka mid tahay markaa iyo inaad waxaagana haysatid identitygaaga iyo waxaa tayna haysatid dadkana waxna ku kordhisid waxna ka kororhsatid siday u dhici kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay khatartaa dad ku dhici doonaa inay jiraan ilaahayna qur-aanka waa inoogu sheegay ilaahay qur-aanka waa ku sheego xataa qaar aqoon lahaa oo masaalixda adduunyo ka door biday oo lumay baa ilaahay sheegay oo qur-aanka ilahay wuxuu ku tilmaamaya ninuu ka warramayo leeyahy watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu walakinahu akhlada ila alard waاtabaca hawaah famathaluhu kamathali اlkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath dalika mathalu lqowmi ilaahay wuxuu tilmaamaya dadka waxaad u sheegtaa baa ilaahay yidhi kii aanu aayaadka siinay mid aqoon-yahan ahaa aayaad baanu siinay baa ilaahay leeyahy ilaahay buu gartay xaqiiqaduu gartay diintuu fahmay aqoon buu diinta u yeeshay laakiin shaydaan iska raacay baa ilaahay leeyahy fansalakh waa ka siibtay diintiisii wax kaluu maslaxo u arka uu ka doorbiday diintii wuxuu ka dhaafsaday maxay masaalix dunawi oo kale uu arkooday ayuu uga tegey shaydaankaanu raacay baa ilaahay leeyahy ilahay wuxuu leeyahy haddaanu doonno waanu kor yeeli lahayn laakiin isagaa dhulka isku nabay isagaa adduunka ka jeclaaday diinkiisa oo watabaca hawaah baa ilahay yidhi waxay naftiisu doontuu raacay uu diiday inuu xaqa raaco kaas tusaalihiisu wuxuu la mid yahay baa la yidhi eyga wadaadka kitaab xorka ahi eygu la mid yahay baa ilahay qur-aanku tilmaamaya eyga baa la yidhi haddii la eryana carabkuu laalaadiyaa haddii la iska daayana carabkuu laalaadiyaa xoolaha kale markay ama haraadaan ama kulayloodaan ama ayay haraariyada waxaan soomaalidu tidhahda ayay haraariyoodaan laakiin markay iska barwaaqaysan yihiin nimcaysan yihiin ma soo saaraan carabka eygu labada jeerba ma kala garanaysid maxaa la tilmaamayaa kan de haddii wax loo sheegay iyo diintii hadduu helay iyo haddaanu helin waa isku mid aayaadku waxba uma kordhin aayaadkanuu hayey watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina baa ilaha yidhi aayaadkii la siiyey iyo kuwo kale haddii lagu akriyo midna waxuma kordhinayso maslaxo kalu ka doorta idan wadaad kitaab xoora iyo waayeel kitaab xooraba waa la helaya iyo wiil yaroo kitaab xooraba dad diintooda ay la fududaato ama qiimaheedu ka door bida qiimaha dunawiga ah sawgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay iman doonaan saxaabadii isagoo la hadlaya buu wuxuu yihi waxaad raaci doontaan wadooyinkii kuwii idinka horreeyey ayaa taaka taaka iyo dhudhun u raaci doonaan xataa hadday god masalugalay galaan waa ka dabagelaysaan buu nabigu ku yidhi xadiiska riwaayadka qaarkood waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allahi alyahuuda waannasaara qaala faman riwaayad kalena waxay ku yidhaahdeen alruuma waalfurus qaala faman wuxuu nabigu ku yidhi ma yahuud waxay dhahdeen ma waxaanu sidaa u raacayna waxay ka yaabaynayin iyagoo diintii iyo xaqii haystaa
inay ka lumi doonaan waa wax gariib ah qof xaqii arkaya inuu dhinac maro marka saxaabadu waxay qaadan waayeen ma diintaanu u dhimanay ee naf iyo maalba siisanay ee saatan ayaanu iskaga dhaqaaqi doonaa anagoo arkayna oo ma yahuudiya nasaaran raacayna markaasuu nabigu ku yidhi faman yaa kale mar kalena waxay dhahdeen ma ruum iyo furs baanu raaci doonaa faman buu ku yidhi yaa kale imaam ibn alxajar fii fatxi ilbaari marka uu tilmaamaya axaadiistan wuxuu leeyahay qadaayaadka ku saabsan tadayunkana cilalu tadayunkii ku dhacay yahuudiya nasaara idinku dhacayo waddadaasa maraysaan bidacoodii iyo khuraafaad waxoodii wixii ku saabsan qadaaya dunawiya iyo maamul iyo dowladnimo iyo kuwana ruum iyo furus baa raacaysaan marka waxaa la tilmaamayaa muslimiin iman doonto oo diintooda ka fidnoobi doona qaarna xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dee se caalamulislaami uu ku sugan yihi so kitaabka lama xoorinoo baab kale kii westrankumaa la qaatay dee ruumku waayo waa kuwan une ruum iyo bersia raacaysaan baa la yidhi markay baababkaa joogto markay baababkan kale joogtana alyahuuda wanasara baa raacaysaan nabigu calayh salaatu wasalaam uu sii sheegay maxaa loo sii sheegay in laynooga digo fii suuratu maryam ilaahay ambiyo badan buu kaga warramaya iyo saalixiin maryamo iyo ayaa ilaahay ka warramaya markii kuwaa laga soo warramay ayaa ilaahay isku jamciyo wuxuu yidhi أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جروب كاين تلا تلمامي أنبياء يا صالحين تيا وحصرنا له وحلي وكو إلى آيات كيستادي لغو أخرية سجود إلى رميو يجو أوية لكن كوح كلا تلمامي koox kaloo diintu agtooda ku khafiiftay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu الصalaata waاtabacuu الshahwaata fasawfa yalgawna gaya ila man taaba waaamana wacamila صaalixa faulaa'ika yadkhuluuna اljannata walaa yudlamuuna shaya kuwaa waxa gadaal maray baa ilaahay yidhi koox kale kooxdan kale maxaa u calaamada salaad la dayaco iyo naftu waxay doonayso la iska raaco kooxda diintu ka luntay waxa u calaamada dayaca salaada ama waktigeedii aan la tukanaynin ama iyadoo dhan oo la iskaga tegay ama weysadeedii oo la xumeeyey ama meesha dayac salaadeed iyo waxa kaloo calaamad u ah baa la yidhi naftu waxay doonayso la iska raaco suuqa iska gal iska zinayso khamri iska cab ribada qaado xoolaha boob beenta sheeg waxaa doontaba walaaq waxaasaa u calaamada ilaahay leeyahy kuwaasi baa ilaahay yidhi naar bay geli doonaan ciddii toobad keentay ee iimaan laga helay camal suuban laga helo kuwaa ilaahay waa u dambi dhaafayaa buu leeyahy jannay gelaya ayuha alaxiba waxaynu leenahay marka bulshadu way lumi kartaa qofkuna wuu lumi karaa isagoo xataa diin garanayuu lumi karaa laakiin si uu isu ilaaliyo wuxuu u baahan yahay inuu diintiisana aqoon u yeesho diintiisana dadka ugu yeedho isaguna dabaqo oo ku dhaqmo ilaahay xidhiidhkiisana inuu xoojiyo waa inaad ogaataa challengeska kaa hor imanaya dad badan oo raba inay kulumiyaanna inay jiraan maanta dunidan aadee ku nooshiin ilxaadku waa diin diimaa ka mida kursiga xiwaarul adyaanka kursay ku leeyihin ambiyana way leeyihin dee ku mubashiriin dadka ugu yeedhaya oo faafinaya iskuulla ku faafi halkan ku faafi jaraa'id ku faafi iclaan xataa baskiinan casbaa dhinac lagaga qori jiray ilaahay ma jire ee iska tumo iclaana qola lacagta bixinaysaa waxaasoo dhan ilahay wuxuu leeyay wadda kathiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi baa ilaahay yidhi waxay rabaan inay gaalnimo idiin celiyaan iimaankiina dabadi weliba iyagoo garanaya inay xaq ku sugan tihiin xasadan min cindi anfusihim idan kuwaasina waa jiraan gruub bini aadam oo shayaaiin oo raba inaad luntaana waa jiraan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaan kusoo koobaya ilaahay qur-aanka markuu ka warramay oo ku tilmaamay waanzalnaa ilayka alkitaab waanzalnaa calayka ilahay markuu fii suurati ali cimraan tilmaamay in qur-aan la soo dejiyey aayaad muxkamaad ah iyo kuwa mutashaabaha leh kuwa fii quluubihim zayq
waxay raacayaan baa la yidhi wixii tashaabuhay wuxuun baana kuwa cilmigaa leh ilaahay subxaana wa tacaala wاlraasikhuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi kulu min cindi rabbina wma yadakaru ila ulu lalbaab rabbana laa tuziq quluubana bacda kuwa cilmigu uu biyo dhigay iyagu waxay odhan wixii xagga alle ka yimi o dhan waan rumaynay waxaanay ku ducaysanayaan oo leeyihin rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma inaka anta alwahaab ilahayow intaadna hanuunisay kadib qalbiga yaga ha weecinin ilahu intaadna hanuunisay kadib idan ilaahayna tala saaro baryadiisana badi challenge-kaana ka hortag haddaad aragta inaanay kuu suurtagal ahaynna challenge-kii kale aad samayn karaysaa ee dhulkaagii iyo waddankaagii qabo sala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin